halkani oo xariga ka jira gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa ku yaala deegaanka Jixdin oo gaalkacyo u jira 15 kilomitir waxaana deegaankan uu yahay deegaan ku wanaagsan dhul daaqsimeedka munaasabada xaraka jirka waxaa ka qayb galay xubno ka socda golaha sare ee dawladda Puntland golaha wasiirada iyo xildhibaanada waxgaradka magaalada iyo marti sharaf kale maxamed cabdi maxamuud xogayaha guddiga gacanta ku haya ceelkani ayaa faahfaahinaya marxaladihii kala duwan ee ceelka uu soo maray qabanqaabada iyo qorshaha ceelkan wuxuu soo bilowday bishii May halkaan sahan baan waxaan ku nimid 30 bishii June meesha ugu haboon oo noqon kartana barabaraha godad iyo gaalkacyo noqotay 13 bishii 7 2015 kana halka ayaa gudoomiyaha gobolka iyo duqa degmadu iyo odayaasha dhaqanku ku dhagax dhigeen hadalladaas aan hore u sheegan ay ka jeediyeen ceelkii waa dhamaaday maantana waxaanu iskugu nimid furitaankiisu aan rajeynayno gudoomiyaha baarlamaanka inuu inoo furo objective-ka laga lahaa waxay ahayd mid nabadeed mid deegaan mid beero ceelkan qoditaankiisa waxa ku baxday lacag marka la isku daro qarashaadkiisa iyo rasmi ahaan inta ku baxday $60,000 sida arkaysaan hadda ceelku baa meesha ka qodan laakiin faanoole fari kama qodna haantii biyaha ma leh waastooyinkii xooluhu ka cabayeen ma leh tuubooyinkii ma leh bamkii iyo maxaan ku raahdaa tuubooyinkii iyo motorkii iyo qolkii ciidamada amnigu degi lahaayeen iyo kii motorka la dhigi lahaa iyo dhammaan waa ay inoo dhiman yihiin duqa degmada gaalkacyo cabdicasiis jaamac nugaal ayaa isaguna halkaasi ka hadlay arinta muxuu ahayd amniga ama arinta muxuu ahayd deegaameynta runtii waxa weeyaan qolyahan hoose ceelkan in badan bay ka hadleen mararka qaarkood waa sheegteen oo waxay yiraahdeen muxuu ahayd annaga halkaas mataqaana wax ka furinay mararka qaarkoodna waxa weeyaan deegaankan oo dhan bayba sheegteen oo waxa weeyaan waxay yiraahdeen annaga maarta iska leh waxaan leeyahay deegaankiinu waxa weeyaan waa calaamadsan yahay kan Puntlandna waa calaamadsan yahay waxa weeyaan qolo waliba deegaankeeda inay joogto bay tahay nabadgelyada in laga wada shaqeeyay nabadoongaan Xuseen Saciid oo kamid ah waxgaradka magaalada gaalkacyana waxa uu farin u diray dawladda dhexe Puntland meeshan waxaan rabnaa in beero laga dhigo dad in lagu abuuro deegaan laga dhigo oo xoolo lagu siiyo beero ay ka dhigtaan waxa noo qorshaysan ilaa 100 nin in lagu coodo madaxweynaha waxaan ka qodsanay 50 nin oo waardiye ah in la qarameeyo ciidanka hadda waardiye qaarna ciidamadu ka mid yahay qaarna waa ciidan kaleeto oo u yimid inuu meesha difaaco u yimid oo deegaan ah oo u yimid waxaan rabnaa marka magaaleynta meesha iyo dhismaha ceelka ka dhiman iyo xoolaynta dadka la dajinayo intaba inaad nagala qayb qaadataan gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland mudane Saciid Xasan Shir ayaa bogaadiyay ceelkan iyo waxtarka bulshada iyo isku tashiga bulshada annaga dawladda ayna wasiirka wakiil nooga ah meelihii aanu degi lahayn iyo beeri aan ka qaadan lahayn dadku waa mahadsan yihiin Puntland horeba ha isku tashato loo yiri ha isku tashatadu maaha dawladda kaliya waa shacabka wataa samaysay weeye sii wada ceelasha badiya waa ku filantiin annagu haddana dawladdu waxba idin siinaysaa waa laga yaabaa haddii waa wax iska daahdaa wax dawladeed ka daahday tiina ka fiicane hawlihiina wata waa mahadsantihiin aad iyo aad 100% guul baan idin rajaynayaa waana soo dhaweynayaa inaad waxa wanaagsan oo aad samayseen jasaakallahu khayr baan leena ajr Allah inaka siiyo dalkiina iyo dadkiina ba wax tarteen ceelkani xarga laga jaray ayaa wuxuu noqon doonaa mid wax badan ka bedela biyaha laga helay inta u dhaxaysa gaalkacyo ilaa iyo Jariban Cabdullaahi Yare TV-ga iyo idaacadda SBC magaalada gaalkacyo